xubno ka mid ah mas'uuliyiinta jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan dalkani Kenya oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha jaaliyadda iyo gudoomiye ku-xigeenku ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo iyagoo ugu hambalyeeyay safiirka cusub ee dhawaan madaxweynuhu digreetada madaxweyne ugu soo magacaabay in uu noqdo safiirka Soomaaliland u fadhiya dalkani Kenya. Mas'uuliyiinta jaaliyadda ayaa intaas ku daray in safiirka cusub ee loo soo magacaabay dalkani Kenya Cali Xuseen Ismaaciil Jirde ay gacmo furan ku soo dhaweyn doonaan si wada jirana ay ula shaqayn doonaan. waxaana hambalyadaasi lamida u direen wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yunis iyagoo sheegay kulankii ugu dambeeyay ee uu ku yimaado wasiirku dalkani Kenya ee uu la kulmay jaaliyadda inuu fuliyay ballanqaadkii ahaa in mas'uuliyiin cusub loo soo magacaabo dalkani Kenya jaaliyadana uu ka codsaday inay si wada jira ula shaqeeyaan. go'reyntii gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Soomaaliland Siciid Dubad Cali ayaa ku bilaabay sida tan. ugu talagalnay xafladan inaan ku soo dhaweyno wakiilka cusub ee Soomaaliland soo magacaabay waddanka Kenya Cali Xuseen Ismaaciil aanu ballan qaadaynaa haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliland inaan la shaqeynayno meeshana shaqo fara badan baa taala isagana waxaanu ka filaynaa inuu dardar cusub iyo qorshe cusub la yimaado si wanaagsan oo aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa si kaliya laba baan u soo dhaweynaynaa si niyad samiya baan u soo dhaweynaynaa waxaanu aad iyo aad ugu hadlaynaa oo aad soo dhaweynaynaa waftigii ballaadhay oo watay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo aanu rabitaankaygii waftiga ballaadhna aan u jeedinay iyaguna qadarin iyo wanaag ay ku qaateen oo gaarsiiyeen madaxtooyadii Soomaaliland iyo madaxweynahayagii dhawaaqa madaxtooyada ka soo yeedhna aad iyo aad baan u fiican soo dhaweynaynaa annagoo ka codsanay in loo sameeyo wakiil ama ambaasador la jaan qaada jaaliyadda iyo rabitaankayga haddaanu jaaliyadda ballaadhan reer Kenya ama East Africa walaalkayga cusubna aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa gacmo furan baan soo dhaweynaynaa. halkan waxaan ka salaamayaa ugu horeyn oo aan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo safiirka cusub ee uu noo soo magacaabay waddanka Kenya haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliland waxaan halkan hambalyeynaa kulligay waan soo dhaweynaynaa gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waan la shaqeynaynaa safiirka cusub Cali Xuseen Ismaaciil Jirde aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan waddanka Kenya. waxaana ugu dambeyntii hadalka soo gunaaday gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliland ee dalkani Kenya Siciid Cabdiraxmaan Aadan. waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo waxaan ku hambalyeynayaa magacaabidda uu noo soo magacaabay safiir cusub Cali Xuseen Ismaaciil Jirde waxaan leenahay safiirka cusubna soo dhawow جماعة فن هديان تهليدين هاي ما نكبسوا دويننا سيف عن كل شقينا الله كل يلا بكبسوا دوين دونا الحوينا مرة سلامية يو ما شعب وينا غير Somaliland. عبد الله عبد علي تيفي قرنك جمهورية Somaliland مقالة نيروبي.